ardaydii ka baxday dugsiga Faarax Omar ee ku yaala magaalada Hargeysa ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa kulan aad u ballaaran waxa ay ku qabsadeen galbeedka magaalada London oo kulankaas oo nuxurkiisu ahaa sidii iskuulka dib loogu dhisi lahaa. haddaba dhalinyarada ka baxday iskuulka ee shirka ku qabsatay galbeedka magaalada London ayaa baaq dheer waxa ay u dirayaan ardaydii ka baxday dugsiga Faarax Omar in dugsigii Faarax Omar uu dayacan yahay. hadaladoodina waxa ka mid ah sida tan: rabaad walaalayaal waxaan ka mahadcelinayaa isxilqaanka ay soo xilqaanteen iyo ajiibkaada jibteen codsigii aan idin fidnay ee caawinada aad ka soo qayb gashaan xafladda. waxaan isugu nimidnay waxaanu nahay dad ehela oo meel ka wada jeeda oo ku abtirsada iskuulkii Faarax Omar Secondary School. waxaynu ognahay inuu ahaa iskuulka go'aansan ee magaalada Hargeysa ku yaalay, iskuulka uu dayacan yahay. iskuuladii Hargeysa ee secondaryada ahaana waxa uu kacay ardayda ka baxday ayaa u kacay. waxaan halkan aan uga mahadcelinayaa Sacad oo caawa ka dhigay suurtagal inaynu halkan aan ku kulanno si aynu uga hadalno bal arrimo fara badan oo ugu horeyso sidii aan u dayactiri lahayn iskuulkii oo aan dhammaanteen wax ku soo wada barannay aadna inoogu weynaa. waxa kaliya aynu hadda aynu rabnaa inaynu samayno oo aynu ka wada hadalno waxa weeyaan inkastoo hawshu inoo dambayso sidii iskuulkaasi uu noqon lahaa loo dayactiri lahaa. waxa kaloo halkan adigu macalinayaa macallimiintii waxna soo bartay intii dhimatayna Allah u naxariisto, inta noolna waxaan leeyahay Ilaahay cimri dheer iyo caafimaad ha siiyo. caawad banu faraxsanahay, waynu wada faraxsanahay. waxaan halkan sugu nimidnay inaynu xusuusano aynu dayactirno iskuulkeenii wanaagsanaa ee aynan qiimihiisa halkan ku soo koobi karin ee flower kan soo saaray oo ka soo baxay. marka iskuulka aad buu dayacan yahay runtii sida aynu wada ognahay. marka horta inkastoo ay caawad bilow tahay oo muhiimadan ka wada hadli doono. runtii qodobka ugu horeeya waxweeyna waxaan baaq u dirayaa dadkii reer Faarax Omar iskuulka dhigan jiray oo dhan ama ha naga dambeeyaan ama ha naga horeeyaan. anagu waxaanu hayn lodkii ADI-dadii dhiganayay markii dagaalku dhacay, kuwii ka baxay ADI ka hor iyo kuwii 90yadii ku soo noqdayba markii dalka lagu soo noqday. imika waxaan doonayaa in iyaguna naga soo qayb galaan oo dibidhuska iskuulkan Faarax Omar ay naga la soo qayb galaan aynu gacmaha isqabsano. taas waa baaq dad badan oo ka baxay iskuulka jiro xilal badan haya meelo badan jooga ganacsataa inaanay hawsha nugu yaray nugu daawanay naga la soo qayb galaan. insha Allah bidmillah taala systemka kulli kulan labaad in la qabto oo wixii reer Faarax Omar ahaa meel kale lagu qabto la sameeyo nidaamkii charity-ga meeshii wax lagu ururin lahaa. taawanu insha Allah hawlaha dambe noqon doonaan oo marlabaadka la kulmo la cadeeyo meeshii wax lagu ururin lahaa sida wax loo ururin lahaa. waxaan aad u jeclaan lahaa in abtirsiintu ay noqoto sare Faarax Omar, inaan la qabyaaladayn, inaan la siyaasadayn, ay noqoto barnaamij mudawacnimo ah iskuulkaas iyo sidii loo dhisi lahaa. waxaa la dhisay 1967kii 54 sanadood buu jiraa iskuulku. dadka ka baxayna way tiro badan yihiin. marka dadkii imika ka baxay iskuulka daafaha dunidooda kala jooga umbaan waxaan leenahay donation-ka ka soo qayb qaata. Abdurrahmaan Shaqale, Hong Cable TV, London.